Xawa Cali Ibraahim waa gabadh yar oo Soomaaliyeed oo agoon ah jirtana 14 sano isla markaasina uu ku dhacay cudurka dilaaga ah ee kansarka kaasi oo uu kaga dhacay madaxa waxayna ku jirtaa isbitaalka Sabanjaaye ee ku yaala caasimadda waddanka Malaysia Kuala Lumpur xaaladda dhibane Xawa ayaa ah mid liidata waxaana wax looga qaban kari waayay gudaha dalka iyo wadamada dariska muddadii gaabneed ee ay ku jirtay isbitaalka waxaa ku baxday lacag dhan $30,000 iyadoo dhakhaatiirtu sheegeen in wax laga qaban karo caafimaadkeeda haddii la helo $20,000 oo ay ku mari doonto qaliino kala duwan wuxuuna kansarku marayaa stage 4 oo halkii ugu darnayd madaxa iyo qaarka dambe jidhkeeda wuu isbedelay waxaana maalinba maalinta ka dambeysa ku faafaya cudurka deeqa yuusuf kaahiye oo ah habaryarta dhibane Xawa ayaa waxay ummadda Soomaaliyeed ka codsanaysaa inay soo caawiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gabadhan yartaan habarteed ahay waa ay xanuunsanaysaa waxay qabtaa cudurka kansarka madaxa waa la qalay waxa ku baxday lacag $30,000 ah wixii ehelku ay heli kareen waa ay ku baxday waxaan in ka codsanayaa inaad iga caawisaan haddana waxa ku baxaysa lacag $20,000 ay ku xayiran tahay adeeryaal abtiyaal waalidiinto dhan waxaan ka codsanayaa waxaan inay soo caawiyaan. haddaba waxaa si alla ka cabsi leh kuna jirto islaamnimo Soomaalinimo iyo bilaadanimoba uga codsanaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caalamka hay'adaha deeqda bixiyay qof walba oo gacan ka geysan kara caafimaadka dhibane Xawa inay soo caawiyaan isla markaasina ay garab istaagaan walaashooda Soomaaliyeed ee raaxada ay nolosha cidhiidhiga uga jirto wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir lambarada shaashada kugu qoran.